waa mid ka mid ah barxadaha waaweyn ee degmada Baxdo waxa ka socda banaanbax lagu soo dhaweynayo dhalashada bisha Rabiicul Awwal oo ah bisha uu dhashay nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee بالله ربا له مثلا صلى الله على farxadani oo ku taala dhanka koonfur ee magaalada ayaa waxa isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan kuwaas oo si weyn uga qayb qaadanaya banaanbaxan lagu taageerayo dhalashada bisha Rabiicul Awwal banaanbaxani oo ay soo qaban qaabiyeen culimooyinka degmada Baxdo ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha hooyooyinka dhalinyarada iyo waliba ardooyinka inta uu socday banaanbaxani ayaa waxa la soo bandhigay saliyaal muxaadarooyin iyo khudbado ka hadlaya dhalashada nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee salatu salamun ala mata salatu salamun ala mata salatu salamun ala mata ila al-kun yabha min al-qamara ومنه قوله تعالى ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوخروه ويسبحوه بكرة واصيلا وأما دليل السنة ما رواه إمام مسلم عن أبي قتادة قال سئل عن صوم يوم اثنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم مولده شكرا لله على ما أنعم الله عليه ونحن كذلك نفعل نصوم يوم مولده ونحتفل يوم مولده صلى الله عليه وسلم waxaanu samaynaynaa oo wixii nabiyullaahi maxamed uu ku ammaanay saxaabadiisa waxaa xadiiskaasi muujinayaa dadkaasi loo dembi dhaafay ahlujanno inay yihiin ilaahay inuu ka raalli noqday shareecada islaamka marka la joogo aayadaha iyo axaadiista haddii dad lagu ammaano waxa dadkaa lagu ammaanay waxay ka dhigan yihiin iyadoo ummadda la amray haddii dad lagu cambaareeyo waxyaalahay sameeyeenna waxay ka dhigan tahay iyadoo ummadda laga reebay haddaba haddii nabiyullaahi maxamed wuxuu ku ammaanay aanu gacanta ku hayno cidna dadweynaha banaanbaxan dhigaya ayaa in muddo alugeynaya iyaga oo maraya wadooyinka waaweyn ee magaalada halka markii dambe ay isku biyo shubteen barxad kale ee ku taala dhanka kale ee magaalada halkaas oo ay ugu dambeyn ku duceysteen بالله ربا له مثلا صلى الله على الورى منزلا وللإسلام للدين منسخ بللا صلى الله على الورى منزلا نبيا بالمصطفى يا حبذا مرسلا ذاك والله لا أبغي به بدلا